Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Baraha bulshada sida Facebook, YouTube, Twitter, Instagram iyo kuwa kale oo fara badan waa baro ay ku wada xiriiraan bulshada isuguna gudbiyaan xogaha gaarka ah iyo kuwa aan gaarka ahayn. Kaba soo qaad Facebook, waxaad ku baahin kartaa dhacdooyin waliba isla waqtiga ay dhacayaan. Haddaba ma tahay qof ku baahiya muuqaalada tooska ah barta Facebook? Waxaan ku hayaa 5 talo aad wax badan kaga bedeli karto tayada muuqaalada aad baahinayso. Anigu waxaan ahay saaxiibkiina Yaasiin Axmed Yaasiin, adiguna waxaad tahay saaxiibka page-ka iyo channel-ka Yaya Group. Haddii aadan ka mid ahayna soo dhawow. 1. Ka dhig muuqaalka aad baahinayso mid u dhammaystiran shaashadda ama waxa loo yaqaan landscape mode. Muuqaalada loo duubo qaabka joogga ma ahan kuwa la soo jiidasho aad u wanaagsan. Waxaase laga yaabaa haddii aad u isticmaalayso baahinta muuqaalkaaga telefoon Android ah inuusan ka ogolaan doonin tabinta muuqaal shaashad dhammaystiran oo toos ah, laakiin isticmaal xeeladan. Kala soo deg Play Store-ka barnaamijka loo yaqaan Control Rotation, kuna rakib telefoonkaaga Android-ka, ka shaqaysii, kadibna ka dooro landscape ama shaashad dhammaystiran. 2. Si wanaagsan u diyaar garow. Muuqaalada tooska ah waxay isugu jiraan kuwa loo duubay hore iyo kuwa waqti xaadirkaas la duubayo. Waa sakanaan raba si inaan kala hadlo ugu diyaar garow qodobadan. Ka ilaali kaamirada dhaqdhaqaaqa, kuna duub meel sawaxan ku yar yahay. Haddii waqtiga aad ku jirayso tabinta tooska ah iyo qodobada aad ka hadli doonto, iska ilaali inaad ka mashquusho daawadayaashaada. 3. Ha noqdo muuqaalka tooska ah aad tabinayso mid aan ka hor imaanayn diinta Islaamka, anshaxa iyo xorriyadda hadalka. Hana ku xadgudbin sharafta qof, qabiil, qowmiyad iyo waliba qaran, waayo ma ahan muuqaalkan aad tabinayso mid aad dib uga jari karto hadallada xanafta ah ee kaa tagay. Haddiise ay dhacdo qof aad ku casuunto barnaamijka inuu gafo mid ka mid ah dadkan soo xusay, ka bixi raaligelin. 4. U mahadceli daawadayaashaada, kana codso inay la wadaagaan saaxiibadood si tabintaada tooska ay u gaarto dad fara badan oo ku xiiseynaya. 5. Dhaqangeli qodobadan aan kuu sheegay iyo kuwa saaxiibada ay kugu soo qori doonaan qaybta faallada iyo meel waliba. Ugu dambeyn, dhigaho kelmadda maanta oo ah: haddii aad tahay qof rumeeyay Alle iyo aakhiro, khayr sheeg ama iska aamus. Waa saaxiibkiina Yaasiin Axmed Yaasiin oo idin leh falyaqul khayran aw liyasmut. Khayr sheeg ama iska aamus.